waayahay waxay suuqee dambeysay haddii hadda lasoo dhaafay maahe axaddii ka horreysay maanta waxaan hor fadhiyaa laptopkii xagga instagramka waxaan idila soo wadaagay inaad ii soo dirtaan su'aalaad haysaan dhammaantiinba waan fadhiyaa hadda waan ka hadlayaa waan sharaxayaa qayb ka mida su'aalaad ii soo dirteen sida dhammaantiin ragga dumarba aad wax ka qaadataan ugana wada faa'iidaysataan su-aasha u horreysa jiimka meeqa saac ayaa u fiican in la ciyaaro horta jiimka markay noqoto wakhti u gaara ama wakhti loogu talagalay horta jiimka ma jiro inta saac ee aad ku jirtaa jiimka muhiim maaha ee waxa labada muhiima waxaad samaynayso markaad jiimkaad ku jirto markaas marnaba xoog ha saarin saacadahaad ku jirayso ee labada waxaad xooga saartaa waxaad samaynayso markaad jiimkaad ku jirto haddaba wakhti ahaan markay noqoto wakhti intee leeg baa kugu filan hal saac waad maalinkii aad samayso ayaa kugu filan kaana badan sidoo kale maalimaha qaar xataa haddii wakhtigu kugu adkaado 45 daqiiqo ayaad jimicsigaaga ku soo koobi kartaa jidhkaaguna uu isku bedelayaa sidoo kale inaad niyadda ku hayso inaad joogtayso jimicsigii ayaa wax walba ka muhiimsan inaad hal mar tagto haddii saacad noqotay haddii 5 saac noqotaba intii aad ku jiraysaba mar kasta waxaa muhiima inaad joogtayso soo jidhkaagu isu bedelo marka hal saac ilaa 45 daqiiqo ayaa kaa badan jidhkaaguna isku bedelaya caloosha inaan iska jaro rabaa talo ila wadaag jiim maan tegin maxaan sameeyaa si xageen ka bilaabaa horta caloosha inaad rabto inaad wax ka bedesho good way wanaagsan tahay taladeeda koobaad haddaba waxa weeye markay noqoto kow cuntada inaad xooga saarto cuntada cunayso subax markaad soo kacday ilaa habeenkii taad ka seexanaysa inay noqoto cunto nafaqo leh faa'iido leh oo ku jirto protein carbohydrate iyo fat saddexdaaba cuntadaadu inay ka kooban tahay maalinkii sidoo kale waxaad niyadda ku haysaa jidhkaaga hadduu sida weegahay haddii caloosha noqoto iyo haddii kaleba waxaa sidaa ka dhiga waa cuntada waxa haddaba bedeli karaana waa cuntada marka taladeeda koobaad waa cuntada inaad xoogga saarto taladeeda labaad waxa weeye xagga jimicsiga haddaba caloosha markay noqoto in aad 2 mar ilaa 3 mar isbuucii jimicsi aad siiso jimicsiga aad siinaysaana inuu ahaado jimicsi kooban inaanu noqon jimicsi wakhti dheer caloosha aad siinayso ama exercise badan aad caloosha aad siinayso wakhti kooban inaad ku jirto exercise koobanna aad samayso 2 mar ilaa 3 mar ee aad caloosha jimicsiga aad samaynayso sidoo kale waxaa taa ku soo raaca waxa weeye hurdada 7 saacadood ilaa 8 saacadood habeen walba inaad ku dadaasho in aad seexato soo jidhkaagu isu bedelo calooshuna isbedel ay u samayso taafraad ee taa kuu soo raacda waxa weeye haddaba inaad dulqaad yeelato waxay wakhti way qaadanaysaa inay calooshu isbedesho habluhu ma jimicsan karaan sidoo kale caafimaadkooda ma wax uu yeeli karaa horta habluhu way jimicsan karaan caafimaadkoodana waxba ma yeelayo jimicsiga haddaad wiilta haddii aad gabar tahayba faa'iida mar kasta ku jirta haddii aad daa yar tahay iyo haddii aad daa dhexa tahay iyo haddii aad daa weyn aad tahayba haddaan dhuubanahay ee proteinkee u horeeya maxaan isticmaalaa horta haddii aad dhuuban tahay kugulamaan taliyeen bilowga inaad protein aad qaadato ee labada waxaan kugula talin lahaa cunto sababtuna wax kale maahee aniga shakhsi ahaanteyda kula hadlaya markii jimicsigaan bilaabayay 67 kiilo ayaan ahaa caataan ahaa waan dhuubnaa waxa ugu horreeyaan ka bilaabay waxay ahayd waa cuntada marka waxaan ku odhan lahaa xagga cuntada xoogga saar 3 mar ama 4 mar maalinkii isku day inaad wax cunto oo aad joogtayso wakhti dheer cuntadu waxay keenaysaa inuu jidhkaagu isbedelo miisaanku koro caatinimada aad ka baxdo awoodna aad yeelato بروتين هذا ما هدي نقطة وهذا ربطين ممكن بروتين استعماشه عادنا عتاي لما بروتين بوناكسن وهذا استعمال كرتا ككوباد وحويه جينر بالله هذا وكواليتي يسوع سرية كلوس فربضة يسوق الكربوهيدرات يبروتين با وكوتشرا بروتين كلا بعضنا وحويه ماس كان السوق كالوريز فربضة با كوتشرا كربوهيدرات با كوتشرا بروتين با كوتشرا مركز وهذا استعمال كرتا لبدا بروتين با لكن waxa ugu horeeya aan ku dhalan shakhsi ahaantayda ku bilow waa cuntada waayo cuntada ayaa keenaysa inuu jidhkaagu koro awoodna aad yeelato miisaankuna kugu darsamo caatanimadana aad ka baxdo 60 cisho orada caloosha ma lagu jari karaa horta maya
haddii aad orodo bannaanka caloosha inaad jarto iska daayay jidhkao dhan horta wuu soo bedelayaa taa niyadda ku hay calooshana sidaad doonayso ma noqonayso waayo orod markaad samaynayso ama bannaanka aad ordayso dhammaan jidhku dhan baad jimicsi aad siinaysaa markaas 60 cisho haddaad bannaanka orodo oo aad rabto inaad caloosha aad ku riddo isma bedelaysa caloosha ee labada waxaan ku odhan lahaa 3 mar ama 4 mar isbuucii jidhkaaga oo dhan jimicsi sii suu jidhkaagu isu bedelo calooshna waqti bay qaadanaysaa sida garbuhu waqti u qaadanayaan luguhu waqti u qaadanayaan gacmuhu waqti u qaadanayaan dhabarku waqti u qaadanaya inaad u dhisto ayay calooshuna waqti u qaadanaysaa marka 60 cisho haddaad bannaanka orado caloosha keliyaata kuma jiri kartid ee jidhkaagu dhan wuu isu wada bedelayaa taa niyadda ku hay marka 60 ka cisho haddaad orodana markaad dhammayso sidaad doonaysa calooshu uma ekaanayso ee waxaad arkaysaa jidhkiiyo qaato wada noqday dhammaantii qaybuhu faadku ku badan yahayna faadku wuu ku hadhayaa marka taladeedu waxa weeye 3 mar ilaa 4 mar inaad jidhkaaga jimicsi aad siiso qayb walba waqtina aad siiso suu jidhkaagu isu bedelo markaan isdhaho biyo badan cab kaadi ayaan ku waashaa maxaa keeni karaa horta wax kale ma keeni karaan waana wax normal caadiya biyo badan haddaad cabto suuliga waad ku noqnoqonaysaa laakiin waxaad isku daydaa inaanad biyihii aanad iska badin oonad biyihii aanad isku qasbin oo mataqaanay si normal caadiya aad u cabta biyaha tusaale ahaan oo kale anigu waxaan sameeyaa subaxii oo kale biyo badan baan cabaa markaan quraacanayo qadadii oo kale markaan quraacanayo biyo badan baan cabaa cashadii oo kale biyo badan baan cabaa markaas waxay noqonaysaa si normal ayaad suuliga u tegaysaa laakiin haddaad biyihii aad isku qasabto ama biyo badan aad istiraahdo cab maalin kastoo isku qasab dee qasab waxay noqonaysaa inaad suuligii sikin aad ugu noqoto marka tala ahaan waxaan ku odhan lahaa quraacda qadada iyo cashada markaad cunayso biyo badan keliyaata isku day inaad cabto ma inta kale u dhaxaysana waad cabbi kartaa biyaha laakiin marnaba ha isku qasbin biyaha jiim ayaan dhiganayay waan iska dhaafay inaan ku noqdo ayaan rabaa maxaad igula talin lahayd haddii aad jiim aad dhiganaysay hadda waad iska dhaaftay waxaad rabtaa hadda dib inaad ugu noqoto horta way wanaagsan tahay laakiin kow waxaan ku odhan lahaa jimicsiga ha joojin marnaba mar kastoo aad joojiso jimicsiga waxay noqonaysaa haddana inaad eber aad ka soo bilowdo waa taladeeda koowaad ha samaynin oo marnaba ha joojinin jimicsiga marka horta waxaad xoogga saarta waxa weeye maadaama hadda imanka rabta inaad jimicsiga dib aad ugu noqoto bilowga markaad birahaad qaadayso isku day inaanad wax culus aanad qaadin waayo taasi waxay keenaysaa inuu dhaawac ku soo gaadho markaad jiimka aad joogto markaas isku day in aad keliyaata jidhkaad kala furfurto 2 mar ilaa 3 mar isbuucii bilowga soo jidhkaagu ula qabsado jimicsiga hadhow toole markii 1 isbuuc 2 isbuuc 3 isbuuc ka soo wareegaana aad caadi aad u samayn karto sidii caadada ahayd laakiin jimicsiga markay noqoto bilowga tartiib ku bilow wax culusna ha qaadin si aanu dhaawac kuu soo gaadhin hadduu dhaawac ku soo gaadhina dee waqti dheer baad ka maqnaanaysaa jimicsiga markaas tartiib u samee jimicsiga oo wax culus ha qaadin markaad hadda dib aad ugu noqonayso sidoo kalena maalimaha kale aad ka nasanaysa jimicsiga cuntada xoogga saar oo jidhkaaga nasi maaha maalimaha jimicsiga aad samaynayso maalimaha kale sidoo kale say muhiim u yihiin maalimaha jimicsiga aad samaynaysa ayay maalimaha kalena muhiim ay u yihiin markaad jimicsiga aad ka nasanayso jidhkaaga nasi cuntada ilaali sidoo kale mataqaana hurdadana xoogga saar taasi waxay keenaysaa in awooddaadi korodho energy fara badan aad hayso maalinka ku xiga jimicsiga aad ku soo laabanayso marka xoogga saar inaanad wax culus aanad qaadin bilowga jidhkaagana aad kala furfurto 2 cisho ilaa 3 cisho imise sano ayaad ku jirtaa jiimka aniga markay noqoto waxaan ku jiraa hadda bishii September imanka 2 bilood ka hor baan jeclahay 2 bilood ka hor ayaa waxay buuxsamay 10 sano iyo dheeraad ayaan jiimka aan ku jiraa horta bilowgiina ma taqaanayay dee wad ogtaa dad jiimka ku cusubtaa bilowga si serious uma samaynaysid markaa sanadka ugu horeeyay 2 sano ugu horeeyay 3 sano ugu horeeyay serious jimicsiga uma samaynahayn oo ma taqaanayay mana joogtaynahayn oo kaliya waxay iga ahayd inaan sameeyo haddana ka joogo inaan sameeyo haddana inaan ka joogo laakiin inta wixii ka dambeeyay waan joogtay jimicsiga markaas
waxaan wadaa marka la isu wada geeyo 10 sano hadda ayaan jimicsiga ku jiraa. exercise ma samayn karaa kadib markaan iga dhaco xumad ama aan ka ladnaado? horta waxaan kula lahaa haddii aad imika xanuunsanayso oo kale ama jir ahaan ha noqoto ama xumad ha noqoto imika su-aashaada aad ii soo dirtay oo kale horta jimicsiga marnaba ha aadin. isku day inaad maalinkaas oo kale aad ka nasan karto, waayo haddii xumadoo kale ay ku hayso ama madax xanuun ha noqoto ama xumad mataqaana jir ahaan ha noqotee, marka jimicsiga aad tagto, jimicsiga waa jirka waad garaacaysaa, maskaxdiina waad challenge garaynaysaa. marka waxaa laga yaabaa xanuunkaasi inaad markaad jimicsiga aad ka timaado uu dib kuugu soo noqdo, xumadaas ama madaxa kaa haysay ama jirka kaa haysay. marka haddii markaad xanuunsanayso oo kale ama hargab ha noqoto ama madax xanuun keliya ha noqoto ama xumad waxay doontaa noqotee, inaad maalinkaas oo kale isku daydo inaad jimicsiga aad ka nasato haddii aad ka nasan karto. haddii kalena haddii xumadoo kale ay ku hayso subaxii oo kale gelika dambe aad caadi aad noqoto, jimicsiga markaa waad tegi kartaa. laakiin markaad jimicsiga haddaba samaynayso inaad si tartiib aad u samayso oo aanad aad u bushkarayn maskax ahaan iyo jir ahaanba markay noqoto, waayo taasi waxay sababi kartaa inuu xanuunkii ama xumadii ay dib ay kugu soo noqoto. markaas intaasaan hayay maanta oo aan mataqaanay soo qaatay. waxaan rajaynaya dhammaantiin rag iyo dumarba inaad wax ka qaadateen, dee aan yaro sharaxayna. markaas waxaa inoo barana dhammaantiin rag iyo dumarba axaddan soo socota. peace out.